madaxweynaha Soomaaliya mudane Xasan Sheekh Maxamuud ayaa ugu baaqay shacabka inay adkeeyaan midnimada dalka dawladana gacan laga siiyo sidii dalka loo samata bixin lahaa. madaxweynaha ka hadlaya furitaanka goob waxbarasho ku taala Muqdisho ayaa si gaar ah u taabtay xaaladaha ka taagan Somaliland, gobolada Jubbooyinka iyo arrimo kale. wariyaha VOA Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste warbixintan ka soo diray magaalada Muqdisho. madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta xariga ka jarayay xarun waxbarasho oo loogu talagalay caruurta agoonta taasoo ay magaalada Muqdisho ka hirgelisay dawladda Turkiga ayaa halkaasi ka jeediyay khudbad dheer oo dhinacyo badan taabanaysay kana hadlaysay xaaladda siyaasadeed ee dalka iyo halka ay xilligan marayso. madaxweynaha ayaa ugu horeyn baaq kooban u jeediyay maamulka Somaliland iyo guud ahaan dadka ku dhaqan gobolada waqooyi, waxaana uu xusay in la gaaray waqtigii caadifada iyo dhibaatooyinkii hore u dhacay dib looga soo noqon lahaa isla markaana loo gaari lahaa midnimo. waxaana uu intaasi ku daray in siyaasadda dawladdu ay qeexayso inay muqadas tahay midnimada ummadda Soomaaliyeed. walaalaha Soomaaliyeed ee guud ahaan ku nool gobolada waqooyi waxaan leenahay waxa la gaaray waayihii iyo waqtigii caatifadii iyo maxaan ku raadayay dhibaatadii iyo wixii dhacay aan ka soo noqon lahayn oo aan u soo noqon lahayn dalkeena inuu mid noqdo oo midoobo. dawladda Soomaaliya siyaasadeeda waxay tahay Soomaaliya oo mid ah iyo Soomaaliya oo degan, labadaas in la helaa. Soomaaliya oo mid ah dawladdu dadaal badan ay u gashay wax kasta oo suurto gelinaya in aan midnimadaas gaarnana dawladda Soomaaliya inay sameysay diyaar u tahay, haddii ay tahay inaan meel kasta u safarno iyo haddii ay tahay qof kasta Soomaaliya mustawa kasta ha jooga inaan la hadalnaa. diyaar ayaan u nahay inaan la hadalno oon raalli garayno oo midnimadii dalku dib isugu soo celino, Soomaaliya oo mid aan helno. taasina qiimo aan ku bedelanayna ma jiro, laakiin waa mustaqbalka iyo aayaha dalkeena. dunida maanta isu tegaysa ee isku imaanaysa ee qaarada ay isku tegayaan, Soomaaliya dhowr gobol u kala qaybqaybsanaysaa, khiyaar noo furan ma aha maanta. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa dhinaca kale markii ugu horeysay soo hadal qaaday arrimaha Jubbooyinka, gaar ahaan xaaladaha jira ee iminka ka aloosan magaalada Kismaayo, isagoo qiray inay soo ifbaxeen waxyaabo badan ay horey uga digayeen. waxaana uu tilmaamay in waxa maanta Kismaayo ka soo baxay ay daliil u yihiin inaan loo dhammayn arrinta la xiriirta maamul samaynta Jubbooyinka. haddii aan usoo noqdo baryahan ayaduna muxuu ahay arrinta ku saabsan gobolada la isku yiraahdo Jubbooyinka, magaalada Kismaayo hatan uu ka socday waayahan shirar iyo wax kala gooni ah. muddo 5 bilood waxaan mar walba isku dayeynay waxa magaalada Kismaayo ka socda inaan qurxino, in aan ka dhigno wax loo wada dhan yahay, in aan ka dhigno wax waafaqsan dastuurkeena, in laga dhigo oo loo qurxiyo wax adeegaya dadka deegaanka degan. waxaan ka digaynay in kala qaybsanaan iyo dadka qaarkiis in la riixriixa iyo aanay qurux badan ku imaanaynin. maantana waxaa muuqato ifafaalihii wax badan oo ka digayna ah meesha inuu ka soo muuqdo, si kala qaybsanaan, dadka qaarkiis gooni loo sii kala istaago, qolaba meel ay istaagto oo mushkiladu shalay meeshii ay joogtay meel ka sii culus maanta ay tagto. welina waxaan isleeyahay rajadu ma dhammaanin, way fiicantahay, waxbaa la qaban karaa. ayadana waxaan doonayaa mashruuca Kismaayo ka socday inaan loo dhammayna waxaa daliil u ah waxa maanta ka soo baxay Kismaayo oo ka jira daliil u ah inaan wax loo wada dhan yahay dadka deegaanku ay wada leeyihiin inaanu ahayn. madaxweynaha ayaa ugu dambeyntii khudbadiisa uga hadlay arrimaha la xiriira federalismka, waxaana uu sheegay in haba yaraatay aan lagu muransanayn in dawladdu ay qaadatay nidaamka federalismka, balse su'aasha taagani ay tahay sida dalka looga dhigi lahaa federaal. waxaana uu xusay in muddada dawladdu ay jirtay oo ah mid kooban aan lagu gaari karin nidaamka federaalka. qodobka kale aan doonayaa sidaan soo qaado wuxuu yahay arrinta ku saabsan federalismka. waxaan leeyahay dadka Jubbooyinka degan iyo dadka Soomaaliya degan guud ahaan ciddii loo sheegay dawladda federalismka diidan war sax ma ahan. Soomaaliya iskuma khilaafsana arrinta federalismka, constitution-ka ku taala isfaham siyaasadeed oo dadka Soomaaliyeed gaareen waaye. maanta dawladda Soomaaliya wax kale mashruuc kale wadata ma laha, laakiin waxaan rabaa meesha boogta ah oo dadku ay ka mas'alada jawaab aan loo hayn oo qof walba uu ka cararay waxay tahay dalka sidee federaal looga dhigayaa. mas'aladaas waaye mas'alada noo taagan oo inaan ka wada tashano, ka wada hadalna aan rabno. dawladda Soomaaliyana barnaamij ay la timiday cad oo aan qarsoonayn oo ay doonayso dalka federaal in looga dhigo, waqtiyaysan, tilmaaman, leh heerar kala duwan oo midba mar la gaarayo ilaa maxaan ku raadayay laga gaaro. waxaan rabnaa inaan u sheego dadka Soomaaliyeed inaanay ku kabsoomin mitaalo cadcad. dal kasta oo federaal noqday dib ugu noqo meeqay ku qaadatay maalintii go'aan gaareen inay federaal noqdaan iyo maalintay federaal gaareen.
in aan 6 bilood gudahood dalka federaal uga dhignaahay macnaheedu waxay tahay fashil aan ku degdegna waaye dawladda Soomaaliya taas raali kama ahan. Xasan Kaafi Qoyste VOA Muqdisho.